markabkan oo ka soo shiraacday dalka Turkiga ayaa ku soo xirtay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. markabkan wuxuu sahmin doonaa badda Soomaaliya laga soo bilaabo Hobyo ilaa lagu geeyo Ras Kamboni. markabkan wuxuu horseedi doonaa inay Soomaaliya iska rido heeriyadii saboolnimada, waxaana loo wareegi doonaa in ay noqoto barwaaqo. uma diyaar garoobayno inaan isculaadino, laakiin waxa u diyaar garoobi doonaa inaan kafiil ka noqono ajaanibta ka soo haajiri doonto adduunyada kale. Soomaali way midoobi doonaa, wayna barwaaqoobi doontaa. soo dhawaada oo ku damaashaada markabka 3D-ga ee inoo soo saari doona barwaaqada dalkeena. qofka maanta Soomaaliga oo uu ku soo aado lacag bilyanis ama milyanis ah oo ceyr ay bilaaban doonto isdiyaariya la shacabka Soomaali way dhaqaaqday. maanta khashani maanta caanihi kamaale maanta waa maali weyne maanta Türkiye markabka meesha in kaga muuqdo Soomaaliya shaalka u qodi lahay waa hadii shaalqadu la shay lacaga soo socoto direct alsiiniyay geeda baahida sanadan yeesanayni direct alniyay nin kasta qasad weyn oo lacag ku aruursa diyaarsado ana geedeel waa bilaad hadda saan suudkay waa ka wata ninkii lacagta iyo soo dhacay niyeysti baani aday ku taala hadaad niyeysan direct inta ka dhimid baahi leeyahay ku hayni marka live simul waa insalaam muuqaalka daartin hala shar gareey xaqiisa hala sii abtiga cali markabka shidaalka qoday uu imaaday Soomaaliya waa saxanaya wax yar markii shidaalka la soo saaro hal soo kiciyo xuquuqdeeda ha cunanina oo jeedana faqad darro ilaahay hayso hadaa cuntaana cimriga ilaahay diiso mar dhow qaniina qalina markabka shidaalka noqon la ag taaganahay soolabtay waa ikana iska warama jawiga madagana awooda ma u sheeg maraxa nabar ku dhagana zah 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 zibana ana ma heeste kama indahado ka eegayo suridaad ka dawrayo
Soomaaliyeed aan isku wada xirnaan hadda markabkan hado meel hebel oo shidaalka dhuuqiro meeshan reer hebel wax ma laga siiyay